I'm running for mayor of St. Louis Park. rajadeedii aad iyo aad u fiican tahay sababtoo horta markii hore booskan waa lagu doortay oo city councilka dadku ay garanayaan oo shaqadaas maker way ugu aamineen shaqada way lagu aaminaybo hadda maxaa u maleynayaa waa aaminsanahay in lagu dooranayo booskan halka qof oo meeshan ka tartamaysa ahay alxamdulillah you know the people trust that I can get the work done aad iyo aad weyn bay noo tahay gabar walaasheena oo Naadiya Maxamed la dhahay inay maanta u soo tartanto kursiga jagada ugu weyn ee gobolka Minnesota jagooyinka kamid ah ee duqa magaalada ah St. Louis Park aad iyo aad u weyn tahay marka waxaan leeyahay waa farxad waa gool waana taageeraynaa albaabadaan la garaacaynaa waa dhaqaalana waa la raadinaynaa waana garab istaagaynaa waana endorse garaynaynaa sababta ugu dhawaaqa booskan waayo rajo fiican baa iga muuqato oo booska city councilka maxaa ku jiray 4 years ku jiray oo 4 sano maxaa sameynay shaqo fiican oo ku xisaabsan amaanada dadka guriyasha la dhisayo wax badan baa ka sameeyay St. Louis Park maxaan rabaa inaan ku sii wado shaqadan inaan ku sii wado so saasa ugu dhawaaqa booskan marka duq magaalada lagu doorto maxaa rabaa laasimba dadka inay guryahooda gataan baa rabaa oo opportunities oo fursad ay ku gataan ina ku sameeyo programs kaas ina culays saaro maxaa kaloo rabaa culays saaro waa small businesses ka maxaa rabaa qof walba oo waxay rabaa ahaato inay St. Louis Park hadday imaato gada karto guriga gada karto business gada karto oo businesskeedana successful noqon karto mogtahay waxaas waa wax lacag oo adiga ku soo gelinayo mogtahay cidaada soo gelinayo oo dadka wealth ku bilgaray karaan mogtahay Thank you for listening. Please make sure to share, like, and subscribe to Runta News channel on YouTube, Facebook, and Twitter.